kusoo dhawow marka hore niyad sami muuqaalkana ha ka hagranin in aad subscribe iyo like ku qabato inkastoo mowduuc dhameystiran aan uga hadli doono faa'iidooyinka safarka waxaa ka mid ah in aad helaysid aqoon iyo waayo aragnimo ballaaran oo si kale oo aad ku heshaa aysan jiri lahayn tilaabo kasta oo aad qaadana waxay kaaga dhigan tahay cilmi iyo garaad ku kordhay aayado badan ayaa looga hadlay quraanka safarka allahna waxa uu ku leeyahay aayada 46 ee suuratu xaj ma waysan dhulka ku socon si quluubtoodu ay u ahaato mid ay wax ku kasaan sidoo kale waxaa ka yaraanaya stresska ay kugu hayeen hawlihii maalinlaha ahaa ee aad la halgamaysid waxay doonaan ba noqdaan waxaad nagelaysaa jawi midka ka gedisan adiga oo marka dambana dib ugu laaban doontid nolol maalmeedkaaga adiga oo soo noqday qof cusub faa'iidada kale ee aan la dhayalsan karin waa la kulanka dad kala duwan adiga ka duwan iyo deegaan ka duwan midkii aad ka timid qof aan dhul marin dhaaya ma leh